dowladda hoose ee magaalada Elafweyn ayaa maanta markii ugu horeysay ka bilowday olole ballaaran oo lagu banaynayo wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaaladani Elafweyn iyadoo ay ololahaasi ay si weyn uga qayb qaadanayeen dadweynaha ku nool degmada Elafweyn gaar ahaan haweenka madaxda dowladda hoose iyo waliba xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Elafweyn ugu horeyn xogayaha fulinta dowladda hoose Saciid Maxamed Ogle Saciidasaan oo maanta la hadiyay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa xusay inay ka maamulaan ay hirgelin doonaan dooyin badan oo waaweyn kuwaas oo dhexmara jidadka kala duwan ee degmadani Elafweyn isagoona dhinaca kale dadweynaha ku nool magaalada ku booriyay inay kala qayb qaataan nadiifinta iyo banaynta gabi ahaanba magaaladani Elafweyn isla markaasina ay fariin buuxda u diray dadka iyagu wada sharci darrada ah goynaya qaar ka mid ah jidadka magaalada Elafweyn maanta waxaan wadnaa ololihii nadaafadeed ugu horeeyay ee degmada Elafweyn ka bilaabma kaasoo xaafadaha dhammaantood ka wada socda anigoo ku hadlaya xoghayaanimada dawladda hoose ee degmada Elafweyn maadaama aanay u saamixin labadii maayir oo iga maqan awgood maanta waxaan halkan dardar leh aanu gelinay iyadoo aanu filanno xilligii roobka oo cirku cusboonaaday sida awgeed waxa waajib lagu noqotay inaan dardar gelino ololaha nadaafadeed dadweynaha iyo dumarayowga qalabkan yaryar ee aanu sidano waxa naga caawiyay oo aanu ka helay hay'adda yare Candlelight dhigaasi waxbaanu ka helay iyo waxyaabo dadweynuhu ay iskood gacantooda uga soo baxeen sida darteed dawladda waxaanu ka codsanaynaa maamul ahaan dadweyne ahaan iska rogadii ay noo ballan qaadeen waayo waa la aragtaa ciidii waan wada turtuuray wax alla waxaanu ku guraa ma jirto dhinaca kalena qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadaha oo ololahani saaka si weyn uga qayb qaadanayay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan waxqabadkan isla markaana uu yahay waxqabad la taaban karo oo nolosha aadamaha muhiim u ah ololahani ballaaran ee nadiifinta iyo banaynta wadooyinka ku yaala bartamaha iyo adafyada magaalada Elafweyn ayaa noqonaya kii ugu horeeyay walow ay tilmaameen mas'uuliyiinta degmadu inay sii wadi doonaan qorshahani banaynta iyo nadiifinta guud ahaanba magaalada Elafweyn waana Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV-ga qaranka Soomaaliland Elafweyn